السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبتنا qaaliga soo dhawaada. maanta waxaan idinku soo dhaweynayaa systemkii aan idin ballan qaadnay inaan idin soo gudbinayna kaas oo ahaa student research management aanu ku sameynaynay Excel. طبعا aad u fudud yahay iskuulada badankoodna waa isticmaalaan sida ugu fudud resultiga report looga diyaariyo iyo waxaas oo dhan halkan ku baran doonaa. insha Allah muuqaalkan waxaan ku soo koobaynaa sidaan setup-ka guud u diyaarsan lahayn. hal mar haddii setup-ka bisha koowaad aad diyaarisid kuwa ka dambeeyana wuu fududan doonaa. dabcan insha Allah isla socono. marka koowaad waxaan sameynaynaa inaan soo furano Excel. waxaan sameynaynaa meesha search-ga waxaa ku qorantaa Excel. haddaad si kale usoo kacsan kartid noo soo kicin kartaa. qaab fara badan loo kiciyaa dabcan hadda u noqon mayno. Excel waa kan hadda isaga ay ugu horeeya waa furanaya dabcan. markuu ii soo kaco wax ugu horeeyaan tilaabada koowaad qaadi doono waxay noqonaysaa inaan blank workbook samaysano ama workbook cusub markaa soo furan. markaa furana kadib hadda waa soo yara dhaweysanaya wax yar. marka inta soo dhaweysan kadib intaanan wax kala bilaabin si nashqada design-ka iyo wax oo dhan loogu qurux badnaadaan waxaa samayn doonaa inaanu samaysano meelaha intriga aan u rabno inaan ku samaysano sida magaca ardayga iyo inta maada uu qaadanayo inta design sax ah soo markaan ugu soo baxo. column-kan C ayaan ka bilaabi doonaa. dabcan waxaan sameynaynaa marka koowaad SR samaysan doonaa oo serial number ardayga la siin doono markaan noqon doono. waxaan ku xijinaynaa magaca ardayga kadibna waxaan tixaynaa maadooyinka ardayga uu qaadanayay inagoo markaa ugu horumarinayna maadada tarbiyada, carabiga ku xijinayna, Soomaali ku xijinayna, English ku xijinayna. marka inta haysano kadib waxaan ku xijinaynaa geography, waxaan ku xijinaynaa history, waxaan ku xijin doonaa hadduu ilaahay karaal noqdo afarta maada scientific aan taxayna. waxa ugu horeeya bio, chemistry waa iska fududeydinaya dabcan kuwan waa fahmi kartaa, physics iyo math. waxaa ugu dambeeya umalaynaya business iyo technology unbaa inoo soo haray. marka inta haysano kadib hal kolama ku darsan doonaa marka aan dhigi doono totalkii weeye. marka intaa samaysana kadib intaan isku qabanaya marka highlight ku samayn doonaa background color u sameynaa markaas midab oo xagga dambe ah. waxaan ka dhiganaynaa colorkan dark blue oo ugu jeclahay kaasaan saaranaynaa. sidoo kale qoraalka fartan waxaan ka dhiganaynaa midabkiisa cadaan. waxaan iska bedelaynaa farta nooca ay tahay. waxaan ka dhiganayaa farta aragto waa ka dhigan kartaa laakiin far muuqata mar walba waa muhiim. ani waxaa isticmaalaa inta badan midan ay yiraahdaan Montserrat. google-kan ka heli kartaa, google fonts-ka ku jirtaa. taasaan ka dhigan doonaa. marka intaa ka dhigto kadib control B ama bold ayaan taaban doonaa. waa arkaysaa farta waxay noqotay hadda far muuqata ayay ii noqotay. marka intaas kadib waxaa ka fikirayaa meeshan name aan ku qori doono magacyada qaar way dheeryihiin marka space weyn waa inaa heli karaa weeye. waa ujeedaa umalaynaya space weyn u samaystay. marka intaas kadib waxaa rabaa naqshadii guud ee sare inaad diyaarsado. marka waxaa sameynayaa marka koowaad saa arkaysid rowga saddexaad iyo rowga afraad ayaan qaban doonaa. waa soo jiidaya waxaa la ekeysiinaya inta uu la ekaan doono table-kayga kadib waa isku furi doonaa intaas. meeshan dantaa kale waxa weeye magaca iskuulka iyo waxyaabahaas reportka u diyaarinaysa inaad ku qoratid waaye. adi waxaa rabto ku qoran kartaa laakiin aniga magac oo iska sambala kugu sameynaa insha Allah. waxaa sameynaa marka koowaad background-iga ka bedelaya. sidoo kale fartana cadaan ayaan ka dhigan doonaa. sidoo kale dhexda isugu keeni doonaa. intaa markaa haysta kadib waxaa sameynayaa waxaa qorayaa adu magaca rabto iskoolka u baxso. anina waa ku soo daawinaya school name intaas kuu qoray. adigu intaa hore iska bedbedel laakiin intaa dambe waa ka simanaa dabcan primary and secondary school saarisi waa ka dhigan kartaa. marka intaa qoran kadib waxaa sameynaynaa intan waa farta weyneynaya marka koowaad. marka intaa kale la ekeysiiyo nooca fartana Montserrat waa farta ay sheegayaan ka dhigan doonaa kadibna qodob ku sameyn doonaa. waxaa moodaa in xoogaha maxaa la yiraahdaa meesha ciriir ku yaran tahay. waxaa sameynaya bes hal mid kamid ah qabo hoos space ya qaweesh marka waa sameyn kartaa. space hadda waa hele. waxaa kaloo rabaa halkan inaan xog badan inta ku qoran doonaa dhowr column oo kusoo darsan doonaa. waxaa sameynaya tusaale ahaan 2 column oo kale igu daran dhahno xitaa mid kale igu sii dar inaa u baahdaa dhici karto. waxaa sameynayaa rowga 6aad ayaan qaban doonaa. waa jiidayaa ilaa iyo dhowr. marka intaa kadib ama waxaa sidoo kale sameyn kartaa 6 iyo 7 isku qababo
marka intaas kadib waxaa samaysaa isku fur oo page ku samey kadib waxaa samayn doonaa border oo samayn doonaa laakiin borderka waxaa ka dhiganaa mid sig mid xoogan ka dhigi doonaa saarkiisid markaa ka dhigi kadib inta waxaa ku qori doonaa table-kan iyo xogtan meesha aan gelinayo waxay ka turjumayso waxaan ka dhigaynaa exam results entry form waxaa riti meeshaan ku qoro laakiin aniga intaan kusoo koobi doonaa fartaa weynaysanaya marka intaa kale ii tahay waxaan u baxsanayaa nooca farta monstratkan ka dhigan doonaa bina waan ku samaysan doonaa sidoo kale waxaa samaynayaa dhexdii ugu aadiyaan dhigi doonaa marka intaan hayso wax yar waa iska yaraynayaa fartan hadda waxaa ii diyaarsan intaas waxaa ku darayaa intaa imaan doonaa waxaa ku darsan doonaa laba row kusoo darsan doonaa oo u baahanahay waa arki doontaa waxyaabo kale ku qoran doonaa marka koowaad waxaa samaynayaa labadan lambar 10 iyo 9 intaa haylaad saa u wada saaro midka hoose 10aad qabanaya in yar ayaan hoos u jiidaya waa arkaysaa umaleynaya ama waxaan ku samaynayaa ama waxaa samayn kartaa sidoo kale rowheydka soo furo halkan waxaa ka dhigantaa 30 saasaa kaaga fudud inta jiiditaanka aad uu kaaga weynaan lahaa heydka cabirka dhirarka uu yeelanaya labada xabo min 30 iga dhigdhe kadib mid kamid halkan iska deleed uma baahnid waxaa samaynayaa marka koowaad kana haylaad saari doonaa intaan isku xirana haylaad saari doonaa waa 1 2 3 kolom haylaad saaray waxaa u samayn doonaa horta waa isku furaya marka isku furo waxaa samaynayaa background oo samaynayaa fartana sidoo kale waxaa ka dhigi doonaa cadaan marka intaasna kadib qaybta ka hooseysana sidoo kale ku samaynayna waa 3 column merge ku samayn doonaa waxaa samaynayaa intaa kadib waxaa isla dooranaya labadii habda aan soo diyaarinayay waxaa ku samaynaya marka thick border oo outside oo wada samaynaya marka intaas kadib mar labaad intaa imaan doona waxaa isku xiri doonaa ilaa iyo 4 taas oo kale shanta xitaan ka dhiga direct si kan ugu yaraan cabirka isku mid marka ay noqdaan waxaa samaynaynaa sidoo kale intaan kala u samayn ka hor merge ku samayn doonaa waa isku furaynaa qaybtan hoosena sidoo kale waa isku furaynaa mid kasta dooranayna hadana waxa u sameynaynaa color fartan waxa ka dhigan doonaa cadaan hal ku arki doonaa insha Allah waxa ku qorinayno kadib labadooda isku dooranaya border oo sameynaya waliba outside waliba border xoogan marka intaas sameeyay kadib hadana mar labaad halkan ay imaan doonaa waa column-ka M oo kiilo ku aadan waan qabanaa ilaa xaggaas aan geyn doonaa waa isku furaya merge ku sameynaya qaybta hoosena sidoo kale waa isku furi doonaa waxa sameynaya kan sara dooranaya color background damba u sameysan doonaa kadibna waxaan gareynaa labadooda oo isku qaban doonaa kadibna waxa uu sameeynaa borderka cad idan marka inta maxaa ku qaban rabnaa marka hadda ila soco shaqada koowaad ku qabanayna waxay tahay exam type nooca imtixaanka uu yahay ma bila ma midterm ba waxaas meesha lagu qori lahaa waaye waxaa sameynaa kan dhaxdii waa diyaariyo doonaa sidoo kale fartan waxaan ka dhigan doonaa monstrat ilaabin mar walba taas isticmaali doonaa xogaa waa weyneynayna ilaa iyo 16 kale ama 14 ka dhig saas ku qorxan tahay inta markaas kadib inta waxa ku qoran doonaa classka ama fasalka marka loogu talagalay class and grade waxa riti waa dhigi kartaa dhaxdii waa dilan marka inta sameeyay kadib farta nooceeda soo bedel bold ka soo dhig sidoo kale 14 ka dhig waa arkaysaa oo maleynaa intan ugu dambeyn waxa ka dhigan doonaa academic year waxaan ka tagay dabcan farta inaan color cadaan ka dhigo waa weyneynayna marka inta haysan kadib ilaa 14 ka gaarsiinayna monstratkin waa ka dhiganaynaa kadibna bold ka dhigan doonaa marka inta sameeyay kadib ayadana centerkii dhigi doonaa idan marka exam type waxa ugu horeeya hadda sameeynayno maadaama monthly 1 uu yahay xaggan exam nooc uu yahay waa monthly 1 waaye monthly 1 ka dhiganayna insha Allah dhaxda ku aadin doonaa isagana sidoo kale waxa sameeynaa farta waa bedelinaa monstrat aan ka dhiganaa waa fiirnaya semi bold hadii ugu jirtaa dabcan semi bold tii hore ka yara xoogaha ka yara khafiifsanta ina faantaa rajeenaya 12 oo kale aan ka dhigaya marka waxa sameeynaa kana qabanaya format painter dhihi doona markasta ay farta meel raadin karin ma fahanti kan marka koowaad heelaad saaranaya si aan farta nooceeda ugu soo koobiyeyso format painter laba jeer jugjug sii doona intana waan taabanaya afwan meesha sanada ka imaanayso
cilada sababta waxaa waaye kan ilaa iyo dhowr goda isku furan dhowr sel ama dhowr koloma isku furan xaggana waa 3 xabo keliya so ma samayn karno dib malahan class inta waxaan ka dhigan doonaa form 4 oo sanaan soo qaadanaynaa wadadii kan marinoo kale un baan marinaynaa waxaan dhaynaa form 4 maadaama inta ku haysid marka koowaad dhexdii geey marka labaad farta monstrat ka dhig bold markan ka wendigayo cosmenta ka sareyso ciwaankii bold ya sema bold ya ka dhiganayo way ku jirtaa noocaas sidoo kale waxa ka dhiganaynaa 14 sarijina tan 14 ahayd afwan tan waa 12 aydan 12 marka ka dhigi doonaa marka inta haysano kadib waxa sameeynaa inta imaanaya academic year sana dugsiyeedka 2023 ilaa 2024 waa mid ka hadda lagu jiro waxaa sameynaya dhexda ku aadin doonaa farta waa bedeli doonaa waxaan ka dhigaynaa monstrat weliba oo semi bold bold inta la gaarin waa xoogaha waa ka yara daciifsanta wax yar 12 kan ka dhigan doonaa hadda naqshadii guud ee heerarka way diyaarsan tahay waxaa sameysanayaa table dhowr arday ah intaasoo kale aan heela sameysay waxaan ku sameynayaa markaa inaan boundaries u sameeyo hadda table-kii uu diyaarsan yahay inaan xog ku qoro kaliya iga sugaya insha Allah waa inoo fiidiyo kale